xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu gelinkii dambe ee maanta cadaada soo gaaray isla markaasna uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka aqalka sare senator Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari socdaalka ay ku helinayaan xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa wasiirka hore ee arrimaha gudaha dowladdan ka horeysay ayaa iyagu cadaado soo gaaray dabcan sidaan warkeena horeba ku sheegnay gelinkii dambe ee galabta waqti dambe ay u ambabaxeen degmada Godanlaba ee gobolka Galgaduud oo Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynaha galmudug uu ku sugan yahay waxay durbadiiba markay tagaan halkaasi kulan la fadhiisteen madaxweyne Xaaf saacadu markay had abaara 7:30 waa 30 daqiiqo ka hor ayay kulankaas u fadhiisteen waxay kulankan lama shaacin ilaa hadda waxyaaba ay kala hadli doonaan madaxweyne Xaaf ha yeeshee waxay kula shirsan yihiin xarunta uu ka degan yahay degmada Godanlaba ee gobolka Galgaduud waxay inta badan sida la sii saadaalinayo kulankan diiradda lagu saari doonaa xaaladda siyaasadeed ee galmudug go'aanada isbedelaya saacadihii la soo dhaafay iyo waxyaabaha xilligan madaxweyne Xaaf u qorshaysan marka kulankan 30 daqiiqo ka hor ayuu bilowday waa uu socdaa hadda saacadaha soo socdana ama daqiiqadaha soo aadan inuu soo gabagabo ayaa la filayaa waxa aan ku ogaan doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda dhageystayaashana ugu soo gudbin doonaa madaxweyne Xaaf in uu caawa u soo hoydo cadaado iyo in uu ku sii hoyan doono Godanlaba iyo waliba waxyaabaha kulanka diiradda lagu saaray ee mas'uuliyiintan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka socota iyo madaxweyne Xaaf ay isku afgartaan dhinaca kale waxaa jiray isagoo wafdi saacadii la soo dhaafay la sugayay inuu ka yimaado magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo hogaaminayo senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid ha yeeshee ma aysan inta galabtay ma aysan soo gaarin cadaado in kasto maqribnimada caawa ay joogeen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug marka xaaladii ugu dambeeyay siyaasadda galmudug ayaa ah mid isbedelaysa saacadii la soo dhaafay wafuuda kala gaartay magaalooyinka cadaado iyo Dhuusamareeb oo ay ku kala sugan yihiin mas'uuliyiintu marka warkii ugu dambeeyay caawa halkaas ayay maraysaa xaaladda Godanlaba shirkaas ayaa ka socda dhageystayaashana wixii ka soo kordha waan la soo socodsiin doonaa insha Allah